kalfadhigii afraad ee golaha deegaanka Gabiley muddooyinkii u dambeeyay u socday ee ku saabsanaa xisaab xidhka miisaaniyadda sanadkii tagay 2013 ayaa waxa kalfadhigii maanta golahaasi ay isla garteen inay hanti dhowr dalbadaan kadib markii maamulka fulintu uu ka qancin kari waayay sidii ay ku baxday miisaaniyaddii 2013 ee goluhu ansixiyay oo aan haba yaraatee sida uu goluhu sheegay aanay waxba ka qabsoomin wax qabadkii miisaaniyaddaasi xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maanta goluhu joojiyay wada shaqayntii maamulka fulinta ilaa inta uu hanti dhowrka guud soo galayo ee uu dhameysanayo hawsha baadhista. Rahmaan Rahiim bishu maanta waa 18 goluhu wuxuu dalbaday hanti dhowr inta hanti dhowrku imanayo goluhu wuxuu joojiyay hawlihiisii shaqo ee uu sii socodsiin lahaa sababtoo ah meesha wax maadaama inta lagu kala baxayo xisaab xidhka goluhu wax halkaas taagnaanaya hawshiisuna saasay ahaanaysaa saasaan maanta islaaf karanay maanta oo bishu 18 tahay waxay goluhu shaqadii ay hayeen ay joojiyeen fulinta ay la shaqayn lahaayeen waxayna sameyn doonaan waxayna doonayaan xisaab xidhkii iyo wada shaqayntii ka dhaxaysay 2013 ayay doonayaan in xisaabtan la sameeyo gudidii fulinta maadaama ay xisaabtan koogii saxdii ka waayeen in ay wada shaqayntii sii socota ay doonayaan inay joojiyaan waxayna go'aan ku gaareen ilaa xisaabtan hanti dhowr soo galo dawladda hoose inayna wada shaqaynta fulinta la shaqaynayn maadaama ay sidaa noqoto miisaaniyadda muranka adag ka dhex dhalisay golaha deegaanka Gabiley oo marka ka dambaysa soo ifbaxaysay ayaa toddobaadkii u dambeeyay dibadda u soo baxday taasi oo uu ka muuqdo madmadow badani waxaana arintani noqotay mid soo wada jeedisay indhaha dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabiley. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hon Cable TV, Gabiley.